walaalayaal waa idin salaam dhammaantiinba waxaan ku salaam magaca sayidkeena iyo badbaadiyahana ciis masiix waa anigoo ashina gaabo oo waqtigan xaadirka ah idin wada barnaamij ama arrin ku saabsan arrinkan waxaan rabaa anoo ka faa'iidaysanayo munaasabadan inaan sheego ummadda Soomaaliyeed laga soo bilaabo taariikhdii fogey Soomaaliba intii la arkay waxay ahayd ummad muslima ummad boqolkiiba boqol muslima waddanka Soomaaliya lagama aqbalayo diin aan diinta muslimka ahayn si fiican warkaaha loo maqlo hadday jirto gaalo madmadow oo Soomaaliya oo isqarinaysa oo kristaan waan la daawateen waxaan hubaa qof walba oo fiirsaday clipkan inuu isleeyahay war maxaa ku dhacay wadaadka maxaa qaadayna waqti maali joogaana wadaadkan waa wadaad ka mid ah wadaadada ugu sareeya ummadda Soomaaliyeed waddankan Soomaaliya oo wadaad ayaga u hadla Soomaaliya wuxuu u hadlaa wadaadada dhan u hadlaaba markaas wuxuu iclaaminayaa in la laayo oo la dhameeyo oo la cirib gooyo qayb ka mid ah Soomaaliya masiixiyiinta waxay ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed ay ka mid yihiin asna wuxuu iclaaminayaa oo go'aaminayaa in la wada laayo meesha lagu arkabo waa arin aad u xun waa arin aad u guracan waa arin aan fiicnayn oo loo joogin waqtigan xaadirka ah waa waqtigii ummadda ay wada noolaan lahayd nabad ku wada noolaan lahayd ma waqtigan ayaan leenahay waa in la iclaamiyaa in ummadan daddan oo rumays leh la cirib tiro waxaas wax suurtoobay ma way dhici jirtay waqti hore in qof uu hadallada noocan kale ku hadlo oo laakiin uu la baxsado ama aan waxba laga qabanin ama la dabagelin laakiin waqtigan xaadirka la joogaa waqtigu isbedelay qof walba oo qalad sameeya ama waxyaabo qalad ah iclaamiya waa laga daba tegayaa waana la soo qabanayaa waxaan ogahay waqtigan la joogo inuusan wadaadka erayadaas ku hadlay oo ah in ummadda qayb ka mid ah la laayo hadday rumaystaan masiixi waa arrin aad u guraacan waa laga daba tegayaa waa la ogaan doonaa waana waa la xukmi doonaa si laftigiisa waayo dunidan sharci baa ka jira qofna sharciga kama weyna haddii asagu isleeyahay Soomaali un baa joogtaa Soomaali waa joogtaa waa ognahay laakiin hadallada ku hadashay kuma ekaanayaan meesha adiga ka hadashay iyo masaajidka adiga ku jirtay laakiin ummadda dhan wada gaaraysaa mar dhow clipkan isaga ah waxa arki doontaa isagoo ku wada qoran af Soomaali kaliya maahane afafka adduunyada oo dhanba oo lagu oo loo wada qaybiyay adduunyada oo dhan si uu ogaato dunida waxyaabaha adiga ka hadashay waxaan aad ugu xumahay in dawladana ay adiga iyo wadaadada nooca oo kale taa inay taageeraan waan arrin aad u xun waxaan dawladda lafteeda kula talan lahayn inay iska fogeeyaan dadka noocan oo kale taa ayagoo oo iska dhigaya inay nabad ka talinayaan haddana iclaaminayo in ummad qayb ka mid ah la laayo dawladdu waxay dawlad u tahay ummadda Soomaalida oo dhan micna aysan sameynaynin qofku wuxuu rumaysan yahay qofka Soomaaliga ah waa Soomaali wuxuu doona rumaysnaade xuquuq buu ku leeyahay waddankiisa inuu joogo wuxuu doona rumaysnaado dawladda ka jirta Soomaaliyana waxay mas'uul ka tahay muwaadin kasta oo Soomaaliya jooga Soomaali baa leh Soomaaliya waxay ahaan jirtay Soomaali intaysan muslim noqonin ka hor taasaa soo horeysay miyaan ilaawo taas waxaan aaminsanahay wadaadka inuu ilaawe marka waxaan leeyahay aniga oo ku hadlayo magaca Soomaali masiixi waxaan dhaleecaynayaa oo cambaaraynayaa eriyadii xumaa fooshu xumaa oo ku hadlay wadaadka waxaan ku waanin lahaa inuu ka toobad keeno oo dib ugu laabto waayo wuxuu ku hadlamaa wax wanaagsan haddii uu rumaysan yahay ilaah ma jecla in dadka la dilo ilaah waa kan leh qofkii qof dilaa waxay la mid tahay isagoo dilay dadka dunida jooga oo dhanba miyuu aaminsan yahay taas haddii taa uu aaminsan yahay waa inuu dib ugu laabtaa hadallada uu ku hadlay walaalayaal waxaan sheegayaa marka qof walba oo dhegeysanaya oo Soomaali masiixi ah ha baqin hana ka cabsanin erayada kuwa afka ka hadlaa kaliya oo raba inay maarad ku cabsi geliyaan laakiin waxba ka qaadi karin waxaa jirta kitaabkeena rabbigu wuxuu ku leeyahay Yohana cutubkiisa 16 aayadda 1 iyo 2 aan akhriyay saddexaadba waxaan waxyaalahan ay ku hadlayaa inaydan ka xumaanin waxay idinka saari doonaan sinagogyada waliba saacadaha imaanaysa in mid walba oo idin dilaa oo u malaynayo ilaah inuu adeegayo waqtigaasi waa laga soo tegay qof uun ka waran haddii uu leeyahay qof baan dilayaa ilaah baan u adeegayaa ilaah looma adeega dil ilaah wuxuu yiri qofka bini'aadinka waa waxa ugu sharafta badan aniga aan abuuray ka waran qofna inuu iclaamaysto oo dadkana uu sheego oo yiraahdo dadkaas dila waa wax ka soo horjeeda rumayska ilaah rumayska dhabta waa wax ka soo horjeeda marka waxaan ku dhiirigelinayaa qofkan hadalkaas ku hadlay waxaan ku dhiirigelinayaa inuu ka toobad keeno iyo kuwa ku raacsanba inay ka toobad keenaan oo ay ka noqdaan hadallada fooshxun ay ku hadleen waxaan ku dhiirigelinayaa walaalaha Soomaalida masiixiyiinta ah cid idin dili kartaa malaha haddii iyo wixii ka dambeeyana waxaad ogaataan qof ka mid ah Soomaali masiixi haddii la dhaawaco ama la dilo waxaan ogaanaynaa inuu mas'uul ka yahay waajibkeedan uu qaadayo wadaadkii hadda hadlay
wadaadkaas ayaa u xil saaran waa isaga iclaamiyey waana ka daba tegaynaa waana ogaanaynaa waxa ku dhacay qofkaas iyo sababta loo dilay waxaana ogaanaynaa in qofkaasi loo dilay ninkan hadlay aawadii marka cabsiyay jirin rabbigan anigu nala jiraa waana waxa waaye masiixiidina way soconaysaa way dhaqaaqaysaa waxa cajiib ah wadaadku wuxuu ku hadlay waxaa kamid ahaa soomaali masiixiin way jiri jirtay weligeed laakiin way isqarin jireen laakiin waqtigan xaadirka isma qarinayno waxaan ku dhiirigelinaa walaalahayka soomaali masiixiinta ha isqarinna say u ogaadaan inaanu badan nahay oo milyuumaad aan nahay inay ogaadaan ma milyuumaad dhan baa la dhamayn karaana genocide miyuu samayn karaa wadaadka iyo dadkiisa ma samayn karaayaan kulli aan soo wada baxno aan iclaamino aniga laftigeena inaan nahay muwaadiniin kamid ah muwaadiniinta soomaaliyeed wadaadku wuxuu ka dhawaajiyey inuu yiri soomaali masiixiid baa xagga joogta soomaali masiixi baa xagga jooga wuxuu ogaaday oo uu gartay in soomaali masiixiinta ay faafayaan oo ay badanayaan wuxuu ka baqayaa in kaniisadiisa laga dhinac dhiso masaajidkiisa laga dhinac dhiso kaniisad ayuu ka cabsanayaa si kaniisada haddii laga dhinac dhiso masaajid waana ognahay dadka dhan way ogyihiin taas in masaajidka laga soo dacaraayo kaniisada lasoo wada buuxinayo wadaadku wuxuu ka cabsanayaa inuu meecibka kusoo dhaco waana ognahay wax qasab iyo xoog lagu haystaa inaysan faa'iido keenaynin ay ha cabsanina waayo ilaah wuxuu yidhi anigu idimaadan siinin ruuxa cabsida laakiin waxaan idin siiyey ruuxadda xoogga jaceylka iyo miyirka waa ilaahayna ilaahaas saas noo jecel ha ka cabsanina kuwa jirka dilaa oo awood u lahayn inay maaragtay si wax kale kusii sameeyaan kitaabkan waxaa ku qoran lucas cutubkiisa 12 aayadda 4 ilaa 5 waxay leedahay waxaa idinku leeyahay saaxiibyaalow ha ka baqina kuwa jirka dilaa oo aan dabadeed wax kale ku samayn karin wadaadka hadalladaas ku hadlay laakiin waxa uu samayn karo haddii u badato kuwa asaga uu soo adeegsaday ayaa waxa laga yaabaa qof inay dilaan laakiin inta ka badan ma samayn karaan laakiin waa in laga baqaa kan markuu dilo ku tuuri karo shaa'ul ku tuuri kara ama naarta ku tuuri kara kaas un ka baqa ayaa kitaab ku taala wakaasna waa ilaah in laga baqa ayaa wanaagsan laakiin wadaad hadlay kama baqayna anaga waxaan leenahay waa usoo taaganaa waan usoo dhiirinahay inaan rumaysadkeena ku adkaysano kuna dhimano kuna joogno weligeenaba waxaad arki doontaan jeelalka soo socda inay u badnaan doonaan soomaali masiixi waddanka iyo dibaddaba waxaa ogaataan soomaali badan ayaa jirta oo yurubtan iyo adduunyada kala imaaday si xuquuqdooda waafaqsan iyo si wanaagsan ayaa loogu soo dhaweeyey waddamada ay yimaadeen cid eryanaysa cid baryaysanaysa ma laha ma laga baqo waayo wixii laga baqaa ma artay waa dhibaato ay wataan marka lagama baqo waa la soo dhaweeyey maxaa soomaaliya dadka joogaa iyo wadaadada soomaaliya ay ugu baqayaan in soomaalida masiixiinta ay badato ay faafto taas ayadaa u daynaya laakiin idinka laftigiina waxaa rabaa in idin sheego waxaa loogu baqayaa waxay tahay waa rumaysadka dhabta ah rumayska dhabta ahna laguma ilaaliyo qoray laguma ilaaliyo iclaamin dagaal laguma ilaaliyo iclaamin maartay in dadka la dhameeyo laakiin ilaah loo daayaa ilaah isagaa kaniisadiisa dhisanayo kana dhex dhisaayo soomaaliya iyo muqdishoba wadaadka isagoo indhihiisa muuqdaan baa waxaa arki doontaan iyadoo kaniisad laga aqrisay masaajidka way imaanaysaa waqtigeeda walaalahiga qaaliga ah qof walbo sidaan oo kaleeta u hadlo oo iclaamiya in ummad la laayo maxkamad baa lasoo saaraa dunida waxaa jiro sharciyo ayaa ka jira dunida united nationkana way shaqaynaysaa waxaad ogaataan soomaali masiixi inay qaybo ay ku leeyihiin hay-adaha dunida kuwa samafalada ha ahaadaano kuwa xuquuq biniaadamka u dood ha ahaadaano waxaan horgeynaynaa arrinka noocan oo kaleeta ah united nationkaan horgeynaynaa qofki sidaan oo kaleeta u hadlay si dad kaleeta aysan ugu dayanin laakiin ay ugu haraan ama ay ka gaabsadaan waxyaabaha wadaadka ku hadlay waxyaaba lamid ah marka waxaan idin leeyahay walaalahayga soomaali masiixiinta ah meel alba meeshaa ku aragtaan hadalkii hadda kasoo baxay wadaadka idinkana ka dhiidhiya oo cambaareeya hana ka cabsanina wuxuu sheegay waxba kama jiraan waayo ayadahan soo sheegnay baa idin kaamilaayo idin taageeraayo idin adkaynayo waayo annaga rabbiga ayaana ilaaliya rabbiga ayaa xooggeena ah kamana cabsanayna kuwa jiri keliya dilaa laakiin ilaahayna wuxuu yidhi haka baqina kuwaas kitaabka wuxuu leeyahay shacaaya 41 aayadda 11 waxay leedahay wuxuu leeyahay ha cabsanina waayo waan idinla jiraa ha nixina maxaa yeelay ilaah baan ahay waan idin xoogeyn doonaa waan idin caawini doonaa waan ku tirin doonaa midigteyda xaq ah bal u fiirsa inta dambe wuxuu rabbi ku leeyahay bal eega kuwa idinku cadhaysan oo dhammu way wada ceeboowi doonaan oo kuwa idinla diriraayana waxay noqon doonaan sida wax aan jirin wayna wada halaagi doonaan marka arrinkan waxaan u daynaynaa rabbigaan u daynaynaa annaga ma aha kuwa dagaalama manihi rabbigaa noo dagaalama annagu manihi kuwa jirka biniaadamka la dagaalamo waxaan nahay kuwa shaydaanka la dagaalamo iska celiya annaga iyo wadaadka hadda hadlay waxaanu nahay dad walaalo ah ilaah wuxuu nagu walaaleeyey biniaadamnimada isaga waa inaan jeclaanaa walaalaha masiixiinto waan u duceynaynaa in ilaah aslaftigiisa uu wadada saxdaa tuso oo indhaha uu furo oo uu jeclaado in dadku nolol ay helaan kitaabkana waxaa ku qoran
tuugu wuxuu yimaada inuu wax dilo waxaado wax dhaco laakiin aniga waxaan u mid ayaa rabbi ciise masiix leeyahay ina idinku nolol heshaan noloshan bannaan aad haystaan waxaan rabnaa Soomaaliya dhan inay nabadkooda noolaato haddii Soomaaliya aragta inay nabadkooda noolaato waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed iska qabta wadaadka noocan oo kale ah oo maartay habaaminayo caruurta iyo dadka maartay Soomaaliya dhanba marka waa arintan oo kale waa in kulli Soomaaliya meel kasta ay joogtoba ay ka dhidhiidaan qaasatan Soomaalida aan muslimka rumaysnayn masiixi kaliya Soomaali kala badan baa jirta waxay kala rumaysan waxaan ku dhiirigelinayaa dhamaantiin ka dhidhiya hor joogsada kana ka cabsanina waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaanba ku dacweeya meelaha adiga aad taagantiin ama aad joogtaan ama ka tirsantiin iyo wadamadiinaba rabbiga hadii la jira dhamaantiinba arrinkan oo kale ayaa laga gambanin arrinkan oo kale waa in banaanka la soo dhigaa waayo qof walba xuquuqdiisa xaq buu leeyahay inuu u doodo dowladda Soomaaliyeedna waxa ka go'an in qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed xuquuqdiisa inay ilaaliso ayadoo joogto dowladda Soomaaliyeed hadda ay jirto haddii qof Soomaali masiixi ah dib loo geysto waxaad ogaataan wadaadka iclaamiye dagaalka inuu asaga mas'uul ka yahay laakiin waxaan ilaah ugu baryayaa inuu asagana toobad keeno waxaan ilaah ugu baryayaa in taas dhicinba waxaan ilaah ka baryayaa inuu dagaal dhicin qofna la dilinba waxaan ilaah ka baryayaa Soomaali masiixi meel kasta ay joogtoba rabbiga inuu ilaaliyo rabbiga inuu badbaadiyo kulligoodba rabbigana gacantiisa quduuska inuu ku wada hayo cid wax ka qaadi kartaa malaha sida asagaba ayadiisa uu noogu sheegay ha cabsanina walaalahaygo dhiirinaada rabbigu idin jecel yahay isagana gacantiisa midigta idin ku hayo cid idin ka saari kartaa ama wax ku samayn kartaa malaha marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeygii ku saabsanaa waxaan dhihi lahaa waxay ahayd maaragtay inaan digniin dadka siino oo u sheegno in dadka maaragtay noo hanjabaa aysan wax soo saaidinaynin laakiin ayaguna iscaadeenayaan rabbiga idin barkaya dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo kulanti kale oo xiise leh rabbi ciise masiix dhammaantiinba qalbiyadayna iimaankiina hada jiro dhammaantiinba nabad baan idinkaga tegaya walaalahay nabaday